kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa 6 caado oo haddii aanad ka fogaanin burburin kara noloshaada. 1. Inaad sugtid inaad maalin wax qaban doontid. Ma leedahay caadada ah inaad tidhaahdo maalin ayaan ganacsiga bilaabi doonaa, maalin ayaan mashruuca qaban doonaa, maalin ayaan balwadda iska dayn doonaa, maalin ayaan miisaankayga dhimi doonaa. Haddaba caadada noocanihi waxay hoos u dhigaysaa horumarka noloshaada. In badan oo inaga mid ah waxaynu sugnaa inaynu maalin uun wax qaban doono, maalintaasina laga yaabaa inaanay imanin. Taasina waxay keenaysaa inaynaan gaadhin hadafkeennii. Haddaba jooji hadalka ah waxa ayaan bilaabi doonaa oo ku beddel inaad qorshayso waxa aad rabto inaad qabato iyo waqtigii aad ku qaban lahayd, kadibna ku dhaqaaq oo si joogto ah u qabo. Nambar 2. Adiga oo aan diiradda saarin waxyaabaha ku gaadhsiinaya hadafkaaga. Dadka badankoodu waxay jecel yihiin inay gaadhaan hadafkooda, balse waxay waqti badan ku bixiyaan waxyaabo aan gaadhsiinayn hadafkooda. Taasina waxay caqabad ku noqotaa horumarkii noloshooda. Haddaba waxaad ku dadaashaa oo aad diiradda saartaa waxyaabaha kuu dhoweynaya ama ku gaadhsiinaya hadafkaaga, si aan waqti badani kaaga lumin, isla markaana aan waqti badani kaaga bixin waxyaabo aan ku gaadhsiinin hadafkaaga iyo qorshihii aad damacsanayd. Nambar 3. Cadhadaada oo aad kantarooli kari weydo. Kantaroolku ma kaa lumaa marka aad cadhooto? Waxaad doontana ma ku hadashaa? Dad badan ayaa sidaas sameeya oo cadhadoodu xadka ka baxdaa. Hadalla aad u xunxun yidhaahdo waqtiga ay xanaaqsan yihiin, go'aamo qaldanna qaata, balse markay cadhadii ka baxdo qoomameeya hadalladii ay yidhaahdeen kana murugooda. Haddaba caadadani waxa ay burburinaysaa horumarka noloshaada. Si aad caadadan xun meesha uga saarto, waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa inaad aamusto, meeshii aad ku xanaaqdayna aad ka baxdo, kadibna aad ka fikirto habka ugu fiican ee aad arrintan u xallin karto. Daqiiqad yar oo aad aamustay naftaadana aad kantarooshay ayaa kaa badbaadin karta qalad aad u xun oo aad samayn lahayd. Nambar 4. Isbarbardhigga noloshaada iyo dadka kale, isla markaana aad u aragto in lagaa nolol fiican yahay. Waayo ma jiro qof wada xun, mana jiro sidoo kale qof wada fiican. Waxaa jira meelo aad ku fiican tahay iyo waxyaabo aad haysato oo aan dadka qaarkood haysanin. Haddaba caadada ah inaad dadka u aragto inay kaa fiican yihiin waxay burburinaysaa noloshaada iyo mustaqbalkaaga dambe. Waa inaad ku qanacdaa waxyaabaha adigu aad haysato ee aad ku fiican tahay. Waxyaabaha dadka qaar ku dheer yihiinna waa inaanad naftaada ku mashquulin, isla markaana aanad u arkin inaad dadka ka liidato ama aad ka hoosayso. Nambar 5. Moobilkaaga oo aad waqtiga ugu badan ku bixiso. Tiknoolajiyadda waxaa loo sameeyey inay nolosheenna inoo fududeeyaan. Marka dhinaca fiican loo isticmaalayana, moobiladu aad ayay inoogu faa'iido badan yihiin. Balse ka waran haddii moobilkaagu balwad kaa noqdo oo aad ku lumiso waqtigaaga ugu badan, miyaanu burburinayn noloshaada? Moobilka oo isticmaalkiisa faraha badani balwad kaa noqdaa wuxuu kaa luminayaa waqti badan oo aad xirfad ku baran lahayd, ama ganacsigaaga aad ku horumarin lahayd, ama arrimo kale aad ku qabsan lahayd oo faa'iido kuu leh. Nambar 6. Inaad ka shakido awoodahaaga. Inaad isu aragto inaad tahay qof aan qiimo lahayn, xirfad lahayn, inaanad caqli badnayn iyo waxyaabaha la midka ah waxay kaa joojin karaan fursado badan oo aad horumar ku gaadhi karto. Waxayna arrintaasi ka mid tahay waxyaabaha horumarkaaga caqabadda ku ah ee burburinaya noloshaada. Haddii aanad caadooyinkaa iska saarin oo aanad xaqiiqada waajihin, weligaa ayay ku haysan doonaan, caqabadna ay kugu ahaan doonaan. Haddii aad dareento inaanad shaqooyinka qaar xirfad u lahayn, halkaad iska fadhiisan lahayd, ku dhaqaaq inaad barato xirfadda kaa maqan, kana faa'iidayso fursadda aad heshay. Haddaba saaxiibayaal, 6 qodob aynu sheegnay iyo qodobo kaloo la mid ahiba waxay ka mid yihiin waxyaabaha noloshaada burburin kara, isla markaana hoos u dhigi kara. Aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii aanad hore subscribe u saarin channelkeena Maamuusa Media, subscribe hadda saar, fiidiyogana like saar.